munaasabadan oo lagu soo bandhigayay buug la magac baxay qabyaaladiid iyo qarandoon ayaa maanta lagu qabtay soo bandhigiisa gudaha degmada Balambal si ay uga faa'iideystaan bulshada deegaanka ayna u kala fahmaan qeexida qaranka iyo qabyaalada. munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayna soo agaasimeen dhalinyarada degmada ayaa waxa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan, madax ka socotay maamulka degmada, ururada dhalinyarada iyo kuwa haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. ugu horeyn waxa munaasabada ka hadlay lagu soo bandhigayay buugga qabyaaladiid iyo qarandoon qaar kamida bulshadii munaasabada ka soo qayb gashay iyagoo aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan buuggan iyo sida ay uga faa'iideysan karaan. buugga markaan aqoonsano kulay kontaskiisa waxbaan ka milicsaday marka gudihiisa aan hoos galo ee aan si fiican u dhaqana insha Allah wixii naga reebay inaan ka harno way waxa wanaagsan ku qorano inaan qaadano way يعني si wanaagsan loogu hirgeliyo marka waxaan 100 jeer bogaadinayaa dhalinyaradii ka soo shaqeysay programkan qabyaaladiid qarandoon waa mashruuc loo baahnaa markaan ka hor inuu soo gaaro degmada hay'adda asalka qabyaaladiid waa su'aal furan oo ay tahay in looga jawaabo si ballaaran oo qoomeysan oo waqti iyo qarash iyo cilmi laga geliyay لأنه مركز صادر والتلتان الصواب العواتي الله يحيى الله صدق الله دبي عضل دبي عد كل هذا حوي باهي دبي عد الله أنه والله مركز اللي صار بالعضل بوقي كوباد ودمضة الوصول بندقي ولكن نستيح من غير سوق الجلي مركز عن بوجان وهذا كان قبل قاعدين وكسر مدينة دون هذه الهي المر كذب وحن كشقينا بندقي كوباد عضل أغلى قاعدته وكان قرآن وكسرنا kadib waxaan isku howlnay degmada labaad in Balambal noqoto insha Allah sidaan hore in kaga balan qaadayna waxaan idin sheegay hadda ka hor in dhalinyarada degmada Balambal la yiraahdo dhalinyarada Soomaaliyeed 75% iyo ka tahay laakiin waxaan idin sheegay dhalinyarada degmada Balambal inay noqon doonto 100% hadii la haymo iyo wax qabadkooda insha Allah subhanahu wa ta'ala waxaan markasta isku howli doonaa kaalinta koobaad hadaan qaadanta labaad in qaadana hadii la haymo quraanka buulka waa masteex abdi aadan وأنا اللي أعرف الفرعون كنتي نارنتي سنة كجران كرتان قبيلتي وحاسين مدن مركو صدق بلوكان لو بلوكان وكمان تجيبون كان عمرها إن دجموهم بدن أي عطسان إن بلوكان لقصوا بديهم وبيشوفوا النوتشي أنا أقول لك كاسا كمل هاي وعطسان إن لسوتشي اليوم أو دجمان يدهم كمان بديهم وحنا قلنا دجمني لما عمرها وكمان تجيبون وأنا أقول لك علينا أوان كاس ونقري ولكن استعانة عبد قبيلتي أنت أدعو ما سيعي ودصوت على علمي مسكحن سكوت لي ولا يكون الناس ولا قبعنا إنه وجه إذا يدك أوبعني كفائدة سار قبيلتها كودا هو أكون قبل عن إن لها ظن مضر أصلا ليش نكون هنا تجمعنا نكون البلد بلد وقالنا عرفتي قبيلات وحيابها دبعتها إلى سافرها قد كذا حتى المجنون دبعتها يعني gabagabadii waxa madasha ka hadlay nasteex aadan cabdi qabyaaladiid oo ah qoraaga buugga isagoo sharaxaad ka bixiyay ujeedada buuggan iyo sida ay uga faa'iideysan doonaan bulshada qaybaheeda kala duwan. buuggan wuxuu ka yahay laba qaybood qaybta koowaad ah qabyaaladiid qaybta labaad ah qarandoon waxaa qofka muujiday qaybtaas buugga soo waafay niisay Cabdilaahi Derba wuxuu badan yahay maaso maadaama dadka inta badan Soomaalida fariinta si sax ah loo gaarsiiyay ay tahay maasooyinka waxa waaye bulshada Soomaalida waxa lagu kiciyaa oo lagu dareensiiyaa waddaniyada ama waxa markaas la aamino waa suugaan ayuu bantay ama waanada sidoo sheegay injineer Abdulwahab waxa weeye inay ka horeysay SWF waa shirkad dadka waxa ahay wax qabiil ama amaana ama caayaqo taas inay awoodaan inay soo bandhigaan awoodahooda qarsoon ee maaso ama hal abuur waayo qofkaan abuurka ama suugaan runtiyo inuu ku dhibayaa karta waxyaabaha la adeegsanayo meesha laga gelhayo sida loo isticmaalayo laakiin buuggaas markuu aqrisado wuxuu awood yeelanayaa qofkaasu buuggaas asaga waa 58 maaso كنت يزداد مع الصفات كأخصائي عن سيدي لا أصلا هذا أقول لها دي اسمه كلام كاس وأنا بفكر مي الوان كذا ينسوا الإنسانية مع سبب سجنيه
nuxurka buuggan ama heerka ka lahaa buuggan wuxuu ahaa inaan soo noolayn kow afkeen hooyo maadaama inta badan boqolkiiba sagaashan buugaagta maanta dhalinyarada soomaaliya qabto ay af qalaad ku qoran tahay labo inaan soo celiyo dadka aan tuso wadaniyad waxleedo oo dadku barato wadaniyad maadaama badan buugaagta aan soo baxay ay noqdeen sheekooyin